waxaanu maanta ku sugannahay saylada caanka ee Garbo oo ka tirsan gobolka Nogob markii sayladaanu soo gaadhnayba waxaanu kulannay ninkan odayga oo la yiraahdo Maxamed Macalin Ibrahim Maxamed sida laga yaabo in dad fara badan ay xusuusan yihiin muddaha tan ilaa 2 bilood laga joogo ayaanu ku kulannay duleedka magaalada Hargeysa isagoo markaa geel ka kaxeeyay sayladan oo deedna geynay magaalada Hargeysa ma horta muuqaalka hore anida xusuusiyo ma safarkii kugu dheerayd wiliga gashaaba ee geelka hayso barnaamij ku tagay socod inta halka ka soo bilowday Garbo inta ka soo bilowday Garbo inta ka soo bilowday baan ku tagay barbaraan ku tagay way oo intee ku qaadatay deedna waxay u qaadatay 18 habeen bay ku qaadatay oo markaan ma geel baa waday waday way Garbo halkay u dhowdahay Garbo goday bay u dhowdahay ceel weyna laga xukumaa way marka saa geel ma kaxaya anigu ina maraan geel si raacnay way geel ma kaxaya oo geel nimka ma iibba markaa waa ii geelu way goday bari hore 95kii baan tagay ay de laakiin gaadaan ku maray ilaa dhagax buur iyo qabri dahare iyo ilaa jigjiga deenda dir dhabaan uga sii gudbay waan gartay bariga col iyo abaar baa dhulka ka jiray waan gartay imika xaalku dhulka soo martay suu aha wallahi dhulku waa nabadgeliyo waa habbi ilaahay baa lagu xamdi way aadan baan abaal lahayn oo xamdi lahayn haaya ilaahay inta lagu xamdiyo Hargeysa dadka lagu weysid oo ku gashid gaday haaya hadan u soo leex cid wax ku siiso weeye cid ku tiraa soo weeco way wadanku waa nabadgeliyo ma sha Allah dadku waa walaalo ma sha Allah waa abi hooyo meesha tagtid goosha ku taal ma sha Allah nabada ku taal ma sha Allah oo marka geel la iibso hadii alla yiraahdo waa noqonaysaa Soomaa imika waa noqonaynaa hadii alla ka dhigo ku kale ma soo kaxaynay imika geel kale soo kaxaynaysaa ku kale ma soo kaxaynaya war Maxamed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu mar kale kulanno oo waliba Garbo aynu ku kulanno bal ii warayso lama wanaagsana aad baa loo wanaagsan yahay boqol waa la wanaagsan yahay walaal intii ka dambeysay waqtiga aynu kulannay imise goor baa halkan geel ka kaxayseen oo Hargeysa geysay 2 jeer baan noqday 2 jeer baan tagay de barwaaqadii aad maalintii iga warramaysay dhulka imka ku soo arkay barwaaqadii nimca ilaahay weeyo indhahaaga aad ku aragtaa nasiib wanaag ismaana lahayn halkan uu wariyuhu yaqaanaa iman ismaana lahayn laakiin waa ku arkay saaka iminka aad doontid baan lahaa oo keentid baan lahaa wadanka maadaama ay wuxuu qadar wax yeelay haddana farxad weyn baad ku arkaysaa Nogob weli ma la soo gaadhin nimcadii adduunka fiidan baad ka soo gashay way ka horeysaa siiradii waa caam iminka aanu aad tagtid baan lahaa Hargeysa aad ku cad baan lahaa nasiib wanaag hadii ilaahay inaan soo raacnaan jeclaa deegma hadaynu isu nimidna waynu tashanaynaa si wanaagsan way Maxamed oo imka waxaan doonayay inaan sii wada lugayno hadalbaha ku dhamaadeen sax way wanaagsan tahay nagu qaadanaysaa way wanaagsan tahay maadaama aad sheegatay niman ku caatoon gaariga dhaxdiisa oo mar lahaan wadatid oo dad jilicsan aad wadatid haddana sadadkaas inuu habsan ugu keeno mooyeen way saxan tahay gordhoweyd baan uga sheekaynay Maxamed ragaan wada soconnay waan idhi rag gaariga ku daalayaan halkan ku haynaa marka Garbo imka laga dhaqaaqo adigoo kale ma aha anigoo kale intay ugu qaadanaysaa bay kula tahay ilaa Hargeysa kulli waxa ku qaadanaysaa muddo dheer bay ku qaadanaysaa si wanaagsan oo tartiib ah lagu sii wadi hadii alla ka dhigo tababarku ku soo kordhay dhaarta ka dambaysaad ka soo reynaysaa tababarku ku sii furmaya tinish qaabeshin iyo nidaam gaadiid baan ku rari bariiskii sonkortii caanihii malabkii sonkortii baan ku rarayaa halkan caanaha ku badan malabka ku badan sonkorta ku badan macdanta ku badan nimcada ilaahay baa ku badan nimcadaas aan ku rarayaa awoo dhoobtay wanaagsanaaday lugtaado hadda kadib gaariba aad iska danaysid baa tagaysaa hadii la yiraahdo xiisad badan baad noqon qaadaysaa weydiisidaan doonayo inaan dhoobtiyo in kale hawl badan iyo kharash badan baa iga galeen kulli maadaama maalinkii hore inagoo aqoon la'aan soo hayno meel isku haleelay haddana in yar qadar socodkaaga baan sidaa hadduu in yar ka yar dhuuman lahaa uu ka sifxinaan lahaa marka intaas darteed baan sidaa ku leeyahay Maxamedow sayladani maxay muhiim ku tahay saylada kale oo xagga uga sukeeyay Hargeysa ma jirin walaal waxa weeye wadankani horta waa gobolka ugu baraaran ee Nogob la baxay weeye xoolaha dadka duunyada ceelasha afarta garjo intaas oo jid oo wado xoolaad baa soo gasha waxa weeye santarka xoolaha weeyaan maanta wax adduunka jooga oo dakeelin ma jirto kun neef maanta hadaad doontid waad helaysaa berri maanta hadaad dalbatid orgigii baad helaysaa irtigii baad helaysaa geli dhalay baad helaysaa arigii baad helaysaa dibidii baad helaysaa wankii baad helaysaa arigi dabaxa baad helaysaa nooc kastaan baad helaysaa dadkii iyo bulshadu way ugu badan tahay ugu balaaran tahay wadanku wadan guda balaaran weeye gobolka Nogob waxa ku yaala ceelkii ugu daawo badnaa habartii Jabuuti ku dhalmadaysay 10 bari markii abta ceelkay ku dhashay baan haynaa
واي عيل كام حليا عيل كام مريكا اللي يهدا مريكا ومجين باللي يهدا داوة ويان حبنا هذا ساس وكل الشبهية حدا دحي تاود على طي المير بكارد جايشين تونجير بكارد جايا دي بدو دلنا نسا المير بكارد جايا داوة ويا عيل كاسي مريكا كان لوجي ماذا انتو ينوشرا يمكن عيد كلها هيجي شيء واحد يربو ينوشرا هذا مدير بعض صعنيسا 8 كيلومتر بعض صعنيسا 8 كيلومتر بعض صعنيسا سيلد واحد وناكسن ويان حركات بيلاد هاي جناعسي البحيرة تشوجا جيبوتي هذا إمك محاكو راضي هرجيسة بربرة أنت يدونتو هذا حول كنا فضي دونتو ولو قد بيا جناعسيال قالي هاتشوجا محاكو راضي إمك حسن صلوب وكله سادات مع الحسن وكله محاكو را حسين جدي وكله محاكو راضي إمك وكيل كتر عبد الظاهر وكله تو لعجها وحوي لعبته ميل دوني يجوكتو إلا يقرب سوق هذا اللي ما أمنه ويا شان كنا نف ميل اللي يقرب جرته توين بريات كيجي شن بري واحد كيجي قرب جرته طبعا كنا نف حركات بيلا ذي سيردو قبل كانوا بدأ بلارين ويا عيل كم ويا قبل نقوم meel heekaleed ka tilmaami lahayd ay waxaan ka tilmaamayaa imka weyn oo kale maxaan ku raadayay sibi oo kale maxaan ku raadayay nogob oo kale to maxaan ku raadayay cusbaley oo kale to galaar roobe miyaad artay ceelka galaar roobe leeyahay waliga miyaad artay gela ma dheertu kuma istaagto markuu cabo kun halaad inaan cidiba ka soo qabanin bay dhooday ma dheerta maxaan ku raadayay wixii kastaana qashina uurkiisa ku jiro dhammo ka keenaa markay sidaa tahay shawli iyo shalaaqooti maxaan ku raadayay ilaha dhamaantood maxaan ku raadayay dhulka hoodan weeyaan dacab salaam waynu wada baranaynaa insha Allah xoolaha waxa la siistaa maxaan ku dhahay sida geel oo kale to maxaan ku dhahay awrta oo kale 15 kun 18 ilaa 20 kun oo dhow maxaan ku dhahay wanka 2000 ha 20 kun oo bir sida wanka 2500 maxaan ku dhahay orgiga 3000 iyo waxba la siistaa maxaan ku dhahay dibiga 15 kun 20 kun halkaas ay gaadhaa maxaan ku dhahay cid waxa weeyaan iminka waxaan aaminsanahay iminka cudurka leeyahay maxaan ku raadayay iminka gaalada ayay maalin ka sheekaysanay aanu hadii wax la weydiin lahaa waxaan oran lahaa xoolaha ceelashan cabay ha cunaan hilibkooda boqolka boqol way ku caafaadayeen ha kuma dhacayo wad waxaan ka inaan ku dhacay ma jirto wadi ma la celin karin xoolahan ha isticmaalaan gelan ha isticmaalaan arigan ha isticmaalaan lodan ha isticmaalaan xoolahan ha isticmaalaan baadaama ceelal daawa cabeen oo wad mooyaan dadku san dhibaninba maxamedow geelasha gartay oo de maalintiiba wadigii waday halkan aad ka kaxaysaa ariyaha la dhoofinayo halkan ma laga iibsadaa iyaga waa la iibsadaa maxaan ku dhahay boqolkiiba boqol ganacsi uu ku furan yahay adduunka meel kale oo xoolo ay ka tagaan ma jirto gobolka Nogbeed mooyeen wuu yar yahay wixii kale waa wax halkan loo keeno oo halkan ka sii gudban weeyaan gobolka Nogbeed centerkiisa waa taagantahay xuduntii waa taagantahay maxamed waanu ballanno inaanu sii raacnana waa laga yaabaa waanu sii wada lugayno محمد محاتي أنا قال بلادهم بيجوا قاعدين ليد ملا هذه كل مي وان كاجا يرين واحد يردي الله كده وصفنا هيسا قاب بنكو سمين هيا قاب بنكو سمين أكوس عتيد أنا قد كل بوين تجيسون أنا سدد وان جيسين كرا تضوي وان جيسين سجال وان جيسين كرا لبيت وان جيسين كرا عد أنا ضنا يا محن كده قدر داجنت هذه النظام كذا. طب صافد وشيء يعني واحد كله ذي لا تطوب بقول كيلومتر سوما.